السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة جنالكيga ku xiran YouTube-ka waan idin salaamay meel kastood ku sugan tihiin halka daawanaysaan waa channelkayga Caasha Caagane mar kale kulan wacan iyo muuqaal cusub aniga oo jeclaa inaan marti idin soo fariisiyo laakiin mowduuca aan ka hadlay maadaama aniga aan ku filanahay waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago wixii kale oo markaasi anaga naga weynaado inaan marti idin soo fariisiyo oo marka aan ka munaashaqoono balse marka inta aan u gudagelin barnaamijka aan ka hadlayo barnaamij aad xasaasi u ah saaxiibada igu cusub tahay channelkayga subscribe ku qabo like comment share ismaal di jire waxaan muddo xoogaa inaa degdegayo laakiin waan buufsinayaa muuqaalka maadaama la yiri muuqaalada dhaadheer dadku ma jecla sheekada yaan waxba idinku daalinin waxay ku saabsan tahay dhanka haasaawaha oo kale waxa la dhahay waxa la yiraahdaa ragga gabdhaha beenbey ku soo xirigeliyaan run waa lagu dhaqaa beenta oo ah in ninka uu gabadha ku yiraahdo jeebkay waa buuxaa diyaarada raaca ma lugeeyay aniga adi been aan soconin in laga dhaadhiciyo ay xabadda iyadana jawaanka inta buuxsato ay tiraahdo alla ilaahay maanta lacaga ku soo gud gashay u qabo camal abay macaanto inta nin lacag la ka daba ordaysid adiga ma lacag sameeysid waa sameyn kartaa si aad ku sameysaba ilaahay xoogaaga dhisidkaaga cuntaa ku anficaysa laakiin mowduuciyana ka sii dibdicin waxaan rabaa arintaasi markii wiilasha lagu dhaho maxaa yani gabadhaha beenta ugu sheegaysaan oo dhahaysaan lacaga leenaha baba iyo intee ka dhacday intee gashay maxaa u dhahaysiin wuxuu ku leeyahay abaayo haddaan dhaho kabteeda tol kabteeda waxaa ku tashmaystay sankay kaa qabsanaysaa oo ku leedaano lacagtan baastiradan cal abugtada ayadana waxa waabo dadku waba jeclaadeen lacag la'aanteed maba la joogi karaa lagu leeyahay in la sheegto ma ahane warkii kooban oo koob ku jiro waxaan rabaa isweydiinayaa wiilasha weeba runteeba sheegeen gabadhan waxaa beenta ugu sheegeynaa waxaa waaye ma ogolo runta oo ah sheekooyin badanaa lagu keenay in yacni gabar nin intuu iskaga dhiga nin lacag leh isagoo baawur dhaqaay ee jidka ugu tagay adeerta koomee galay way suuxi kii maalintii dhahay baawur alay lacag alay baawur dhaqooya kan oo baawurta la ama kan gaariga dhaqaay kaaga roon yahay sidaan ra'yigayga qabo oo kale muhiim ma aha daruuri ma aha inaad qof lacag ku doorato qof walba dooq uu leeyahay laakiin aniga dooqayga koowaad qof kuma yani lacag kuma doorteen waxyaabo kale qofka laga fiirin karaa jirto mugta qofka waxaa fiican lacagta asoo heesto oo buuxo oo guriga u buuxo inta buuxda waxa laga yaabaa waaga markuu bariyo yaa in meel walba dab lagu dhajiyay meesha wuxuu haysto dhan oo dharka u watay iyo gogashu siixanay bas ay u soo harto marka waa dareemi kartaa taasna waxa lagu leeyahay shalay kii ladnaa maanta waa faqiir kii shalay faqiirka ahaa maanta waa ladan bakas lacagta mar walba qof bay xaqiisa jirtaa waxa hadda kor qisa dhacday sheeka keentaa lehe gabara nine yani wixii ku diiday daruuf iyo waxaas adiga ka tagta ninkii guursatay ninkeedii ninka diidis awal wuxuu ahaa yani uu yahay ninkeeda shaqaale uu yahay awal ninkaas ay ka tagtay daruuf uga tagtay marka waa kaasa haddii adiga aad yani aad tiraahday lacaga qofku doorana lacagta meelay kaaridaysaa biri waa dhammaanaysaa waxyaabo kaloo qofka ku dooran kartaa jirto laakiin hadda waxaaba cusub ayaantaan aan maqlaaya waxaa lahay gabdhaha meeg abay kusoo xirigeliyaan ragga fool xuman oo ku dhaqaan alwaayabe taas horta ma jirto wax jira ba aha naturalka wax ka qurux badan ma lahan kolay border isku wixii qurux inuu sanahay waa la dareemi karaa laakiin waa iska dayacad yani maadaama ragga iyada loo saariyo la dhahay gabadha beera lagu xirigeliyaan run oo lagu dhaqaa yani gabdho badan waxay ku fakarayaan inay yani nin lacag la ee guursato inay laga yaabay gabdhaha xataa markii gabadh ay si guursanay cabaar ay joogto xataa dadka inay ku fakaraan xataa ay dhahan gabadhan waxay u joogtaa lacag ay sugaysaa nin lacag leh ninkan lacagtiisa asma kugu qoray muxuu kugu qoraa hadda nin da guursan lacagtiisa ma ugu qoray wuxuu leeyahay Caash Xuseen Caagane lacagtaas ku qor intaas ku qor mu ku leeyahay may biila kulada xaqa kulada bisa ka helay Soomaa noloshaas kale ka dhalaanaysa ka rabtaa laakiin xaqiiqada waxay tahay inta qof lacag ku raaci lahayd wax kale ku dooro lacagtu abuuri kartaa inta ku fikir lahayd inaan nin lacag leh aad guursatidna waxa ku fikirtaa adiga inaan lacagta sameyso ilaa asagaba 9 bilood ku dhashay ama 9 bilood ku dhalatay cid ku diidaysa ma inaan lacag sameyso sameyn kartaa waa awooda maanta wax ganacsanaya boqolkiiba lixdan aan dhahayna dumarkeena u badan
marka la eego goobooyinka ganacsiga ama ha u badnaadaan marka loo eego suuqyadan bariga Africa oo kale marka way iska caddahay Africa iyo Asia iyo Asia iyo America iyo Europe in dumarka qaarkood ay wax dhacsanayaan ma dhahayo aniga raggana yani inaan la jiro ma ila ahaan laakiin waxaan leeyahay mahmaahda ah gabar been baa lagu soo xirogeliyaa runna waa lagu dhaqaa ragga dee waxay u haystaan bahalkii dooday u haystaan oo ah ay leeyihiin anaga waxaas nagu qasba gabdhaheen lacag ay jecel yihiin waa kana commentiga kusoo dhiiban kartaan fikirkeena been miya in wiilashii ay leeyihiin yani gabadha haddaysan jeebkaaga lacag ku jirin yani ma kusoo fiirinaysa ma ku rabto ma ku damcinaysa xataa waxaa laga yaabaa mid inay yani kugu soo qaldanto adigoo yani shaatigaada iska feereysto iska nool qof waxaa tahay ma shilinkiisa maanta doo helo uu cuno yani ay ku aragtaba waxay kuula dhacdaba inaad tahay bismillahi raxmaani raxiim taajirka adduunka ma kusoo jiidanaysid dareen ah inaad adi lacag leedahay oo ah na isticmaashid waxaa laga yaabaa xeelado kale qofku inuu samaysan karo dadka biniaadanka isku mid maa dumarka shantaas farood waaye raggan waa sidoo kale ilaahay biniaadanka ma simin dumar waa la jiraan in ragga qaarkood ay lacag ay ku raacaan oo kale anima ogin lacagtaas waxay ku qaban doonaan I don't know eegaa la weydiinayaa marka aragti ahaan mawduucaas uu jiraa raggana way ka hadleen inkastoo aan jeclaa eegana hadirtaan qof ragga u hadlayo inuu inta joogo uu isagana ka raacyo dhiibto haddana ma isa suurtagelin mawduucaas isdul taagay barnaamijkana markaasi kusoo diray barnaamijyadana way socon doonaan arrimaha bulshada ku saabsan janalkayga ka daawan doontaan wixii aragti iyo tusaale ah oo is leedahay caasha caagane waad kusoo kordhi kartaa waan soo dhaweynaa fikirkaaga qaybta hoose commentiga waad iigu reebi kartaa wixii dhaliil ah iyo wixii taageerid ahba waan idin salaamayaa waan idin jeclahay gabdho iyo wiilalbo subscribe ii saara janalkayga taageerid ayay ii tahay in aad markaasi haddii aad subscribe iyo like iyo comment iyo share aan helo inaan muuqaalada sii kordhin doono aanna dhiirigelin fiican aan ka heli doono wixii ilaahay igala siiyana aan halkan idinku soo gudbin doono waana mahadsantiin saaxiibada mar kale waan idin salaamayaa bye love you